kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka kormeerka wararka iyo kaftanka waanu si wada jira idinku soo jeedinayna anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Axmed iyo saaxiibkay Barre Ilka Case waxaadna si wada jira uga daawanaysaan channelada kale ah Qarji Qod iyo waliba Kismaayo Cable qodobada aan maanta idinku soo gudbinaynana waxaa kamid ah Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynihii hore dowladda federaalka ee Soomaaliya oo walaac ka muujiyay kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyo waliba wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo isna ka hadlay isla kiiskaasi badda walaac badan ka muujiyay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ka daawan doontaan aan ku horeyno madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo hawsha walaaca uu ka muujiyay kiiska badda ku soo dhaw Barro aad ma santa Cabdiraxmaan waxaan ogeyn muddooyinka u dambeeyay in ay jirto hadal haynta kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya oo markii labaad dib loo dhigay kadib markii dowladda Kenya ay dalbatay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu madaxweyne farmaajo kursiga kala wareegay ayaa hadda waxa uu ka hadlay arintan kiiska badda ee Soomaaliya Kenya u dhaxeeya waxaana walaac ka muujiyay qaabka ay wax u socdaan madaxweyne farmaajo madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin in la socodsiiyo oo ay ogaadaan halka uu wax marayo iyo sida ay wax u socdaan waxa la sheegay Cabdiraxmaan in xeerarka maxkamadda ICJ-da ay qabaan in markii laba dhinac ay kiis isku hayaan aan dib loo dhigi karin iyadoo labadaas dhinac aysan isku raacsaneen aadiya waxaan hadda ognahay in Soomaaliya markii Kenya hadda ugu dambeysay ay dalbatay in kiiska dib loo dhigo in wafdi ka socda Soomaaliya loo yeeray oo ay tageen iyadoo warbixintii aan helay ay sheegeen guddigii Soomaaliya ka socday in aan waxba waqtiga lagu kordhinaynin oo qaabkii hore ku soconayso ay diideen oo ahaa in 4 November dhageysiga kiiska badda oo dhacayo iyadoo sidaas ay jirtay maxkamadda waxay wafdiga Soomaaliya ku amartay inay dib isaga laabtaan go'aanka maxkamaddana ay ka warsugaan arintii waxa dhacday marka in dalabkii Kenya la aqbalay oo dib loo dhigay ilaa sanadka 2020 in dib loo dhigay kiiska dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya Kenya u dhaxaysa dad badan ba marka waxay isweydiinayaan ama madaxdan waxay walaac ka muujinayaan waxa uu yahay haddii Soomaaliya ay go'aankeedii ku adkaysatay oo ay tiri kiiska badda anaga dhankanaga hal maalin dib looma dhigo ku soconaya Kenya ay dalbatay in dib loo dhigo sababta dib loogu dhigo iyadoo xeerarka maxkamadda ay qabaan in labada dhinac iyagoon isku raacsanayn dib u dhigisaasi ama dacwadaasi labada dhinac iyagoon isku raacsan in dib loo dhigo aan dib loo dhigi karin wuxuu hadduu kiis maxkamad noqdo waa cadaan iyo madow maxkamaddu ciidan bay xukuminaysaa maxay tahay sababta ay Kenya u dalbanayso in mar walba dib loo dhigo kiiskan in la bedelo oo si gaar ah loo xalliyo wada hadal lagu xalliyo maxay tahay sababtaas Cabdiraxmaan oo Kenya waa dhaxaasaha waxa ka soo baxday ama markii horreysay waxa ka soo baxday in qareenada markaasi u doodayay ay dowladda Kenya dhalishay qaabka ay wax u wadaan oo ay ku tilmaantay inaysan xirfad sare aysan u lahayn arintan taas marka waxay sababtay Kenya in maartay ay dib u dhig ay dalbato in qareeno cusub ay qorato oo maartay tayalo xirfad sare leh oo Kenya u doodi kara marka Cabdiraxmaan oo Kenya marka in maartay ay dhowr jeer dalbatay in maxkamadda dib loo dhigo arimo farsamo waaye dabcan Kenya waxa ay rabtaa in dacwadan iyada ay ku guuleysto inkastoo Soomaaliya ay kalsooni fara badan ku qabto in kiiskaasi ayada loo xukumin doono iyada ku guuleysan doonto marka Kenya waxa waqtiyadan dheeriga kolba dalbanayso waxay raasanaysaa taageero caalami ah mid maxalli ah oo Afrika iyo caalamka ka raasito wadamo maartay iyada ay gacan ka hesho marar badan ujeedkeedu waxa weeye in kiiskan badda lagu xalliyo meel ka baxsan maxkamadda ICJ-da marka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ba hadda wuxuu leeyahay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ba hadda wuxuu leeyahay sababta kiiskan dib loogu dhigay waxay mugdi gelinaysaa buu leeyahay in ay jiraan arrimo la xiriira in kiiskan lagu xallin doono meel ka baxsan badda meel ka baxsan maxkamadda ICJ-da marka mugdi baa jira oo ku saabsan sababta Kenya dalabkeeda loo aqbalay Kenyana Soomaaliya dalabkeediina dagaal looga furaystay iyadoo xeerarka maxkamadda ay qabaan in laba dhinac iyadoo isku raacsanayn aan dib loo dhigi karin kiiska la isku haysto marka arinta ma mugdi gelinaysa dad ba waxay leeyihiin dawladdu ayaaba dabcan ogolaatay in dib loo dhigo kiiska maxkamadda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya maxkamadda ICJ-da yaala okay hagaag wasiirkii hore xukuumadda federaalka ee Soomaaliya
arrimaha dibadda ayaa mugdi inuu galay ku tilmaamay kiiskii badda aad iyo aad marka mugdigaasi muxuu yahay yahu Yusuf Garaad wasiirkii hore ee xukuumadda hadda jirta arrimaha dibadda maruu Soomaaliya ku matalayay baa jirtay wuxuu sheegay in markii ugu horeysay ee kiiska maxkamadda la geenayay si hoose loo geeyay balse markii dambe uu soo shaacabaxay oo shacabka la wadaagay wuxuu sheegay markii hore in dawladdu ay la wadaagtay kiiska maxkamadda kolba wafdiga la dirayo sababta loo dirayo wixii natiijada ka soo baxa balse waayadii u dambeysay wuxuu sheegay in dawladdu ay ka aamusto qaabka uu hoos socdo kiiskani sababta wafdiga ay u tagaan ujeedooyinka iyo waliba natiijooyin ka soo baxa dawladdu ay ka aamusto wax hadal ah ay ka soo saareen inta badan dawladda hadda jirta waxa looga bartay marar badan marka uu wax jiro in ay ka aamusto aysan wax hadal ka soo saarin oo shacabka oo markaasi dalbanaya in jawaab laga bixiyo arrimahaasi aysan dawladdu wax jawaab ka bixinin marka waxyaabaha marka mugdiga keenay waxa weeye dawladdii oo ka aamusan oo wax faahfaahin rasmi aan ka bixinin halka wax maraya qaabka uu wax socdo dib u dhigistan iyo dawladdu inay maarta arrintaasi iyadoo ay ku raacdo Kenya iyo in kale iyo shacabkii oo qaylinaya wax jawaab oo rasmi ah aan la siinin marka arrimahan ayaa mugdi keenaya natiijada maartay ka soo bixi karta kiiska badda qaabka ay wax socdaan dabcan waxay shacabku u baahnayeen inay warbaahinta dawladda lagula wadaago wixii xog ah halka uu marayo sida ay Kenyaankuba ula wadaagaan idaacadaha maxalliga ah iyo wargeysyada iyo wixii in madaxdu ay ka hadasho oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu dalka ugu sareeya inay ka hadlaan arrintani halka uu wax marayo hadda tusaale ahaan hadda Kenya markii loo ogolaaday laga ogolaaday dalabkeedii oo dib markale loo dhigay mar labaad loo dhigay dhageysiga kiiska badda dawladda Soomaaliya ma aysan ka hadlin sababtana wali ma aysan sheegin shacabkina waxay sugayaan in dawladdii ay la hadasho oo ay sheegto sababta keentay arrintani intay meelaha kale ka maqlaayeen sababta keentay in Kenyana maartay la aqbalo dalabkeedii Soomaaliya markii hore sheegtay inay diiday in wax lagu daro dhageysiga kiiska xilligii loo asteeyina waxa weeye dalabkeedii loo aqbali waayay marka dad badan baa wax isweydiinaya waxa la leeyahay marka Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha wuxuu leeyahay arrintan qaabka ay u egtahay waxay ku socotaa in kiiskan lagu xalin doono meel ka baxsan badda waana arrimaha meel ka baxsan maxkamadda waana sida ay aad u doorbidayso dawladda Kenya ay aad ugu dadaalayso kiiskaasi lagu xaliyo meel ka baxsan badda meel ka baxsan maxkamadda aad iyo aad okay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy waxaan la socnaa inuu maalmahan u joogay Djibouti aad iyo aad sababta uu jooga maxay tahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed maalmahan wuxuu ku sugan yahay dalka Djibouti gaar ahaan caasimadda dalka Djibouti wuxuu halkaas kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle sababta uu jooga waxa weeye khilaafaad soo kala dhaxgalay wadamadan ku bahoobay urgoboleedka IGAD waa kan ogeynaa 12 bisha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu duulay magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia halkaas markaas isaga ka hor waxa ku sii sugnaa madax kale oo ka timid urgoboleedka IGAD waxa halkaas marka shirkaasi looga hadlayay urgoboleedka IGAD oo markaas xilalka la kala wareegayay baa halkaas ka socday kulankaas marka Soomaaliya hore waxa uu sheegtay inay iyadu rabto in urgoboleedka IGAD xogayaha guud in Soomaaliya la siiyo tusaale ahaan urgoboleedka IGAD waxa la aasaasay sanadkii 1986 Soomaaliya ayaa aasaasay waligeedna inta uu jiro Soomaaliya xilmaysan ka qabanin arrimahaas ee Soomaaliya marka quudareynaysa oo ay doonayso in ugu yaraan hadaan gudoomiyaha la sinin xogayaha guud la siiyo xogayaha guud waxa hadda haya Kenya haysa Maxbuub macalin inagu magacaabo Soomaaliya oo Kenyana ayaa xilkaas hadda haya marka kursiga gudoomiyaha waxa hayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed kursiga marka wuxuu ku wareejiyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta haddii kursiga gudoomiyaha Kenya ay qaadato kii xogayaha guudna ay haysatay labada kursi ma wada haysan karto kursiga xogayaha guud marka waa in wadan kale oo urgoboleedka IGAD ka mid ah la siiyaa wadanka marka Ethiopia ayaa marka rabta kursiga xogayaha guud la siiyo markaas Kenyana ay gudoomiyaha qaato Soomaaliya marka dalka Djibouti isku dhinaca oo xulufo ah iyo maartay Kenya iyo Ethiopia isku dhinaca iyo arintii khilaaf ka dhaxdhashay waan gartay marka Soomaaliya iyo Kenya marka waxay Soomaaliya iyo Djibouti
waxay rabaan in kuraasan Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya isku wareejinayaan in dhankooda iyaga maartay la eego la siiyo markaa oo xitaa hadii Soomaaliya iyo Djibouti labada kursi la kala siin karin in midkood la siiyo si midkaasi marka doorashadan kursigan ma qaab fartaaga iyo doorashay ku dhacdaa xil wareejintan mise garasho iyo qofkii hayay qofku u dhiibo sida warbixinada hadda aan helinay sheegayaan Soomaaliya iyo Kenya hadda waxay rabaan qaab doorasho in kuraasan lagu kala wareego halka qaab macnaha wareeg ah oo la isku wareejinayo caadi ah inay kuraasan loo kala helay rabaan Soomaaliya iyo Djibouti jadwal caadi wareega halka maartay Kenya iyo Ethiopia ay rabaan in loo doorasho loo galo doorashadaasina markaasi cidii ku soo baxda ay kursi sidaas ku qaato marka si kastaba hadda khilaaf baa ka dhex jira wadamada ku bahoobay goboleedka IGAD ra'iisul wasaaraha Ethiopia dalka Djibouti ayuu joogaa wuxuuna xal u raadinayaa khilaafkan ka dhex taagan labada dhinac ay u kala jabeen Kenya iyo Ethiopia dhinaca noqdeen Soomaaliya iyo Djibouti ay dhinaca noqdeen madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar horaan uu hadlay waxa uu sheegay in Soomaaliya ay doonayso in maartay kuraastan la isku wareejinayo urur goboleedka IGAD waxa weeye ay Soomaaliya kursi muhiim ah laga siiyo lagu wareejiyo aad baad mahadsantahay hadii aynu qodobkaas iyo IGAD halka kaga soo noqono qodobka inoogu dambeeya taliyihii hore ee Allah u naxariistay ururka Gorgor oo aan wali la aasin dhowr maalmoodna hadda meyd bari ah sidee baxalka runtii Cabdiraxmaan waa dareemi kartaa xanuunka taliyaha la dilay eerkiisa ay dareemayaan maaragtay wali aysan cadeyn u helin cidii ka dambeysay taliyihii oo ogeyn in habeen dhaweyto 3 habeen ka hor lagu dilay magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka Naasa Hablood labo ama X hadda ma idin loo yaqaano bar control halkaas ku taalo madaxtooyada wali wadadaas ay gashay lagu dilay yaa wali hadda ehladii waxay ku adkaysanay in la aasin inta ay ka helayaan dawladda cadeyn rasmi oo ku aadan cidii ka dambeysay dilkiisa taliyaha iyo askari ilaalo ahaa iyo halkaas lagu dilay ehelada marxuumka ayaa la kulmay wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islo Ducaale waxay sheegeen in jawaab aysan ku qancin uu ka bixiyay dilka taliyaha wasiirka amniga waxay marka inkastoo horay ay u sheegeen booliska Soomaaliya in la xirxiray rag ka dambeeyay dilkaasi haddana wali qoysku waxay leeyihiin wax rasmi ah lama hayo cidii ka dambeysay dilka taliyaha iyo sababta loo dilay midna marka wali taliyihii lama aasin taliyaha waxa lagu sheegay inuu ahaa nin dhalinyaraha oo aad u firfircoon oo aqoon-yahan ah oo ciidamada commandoska Soomaaliya ka tirsan hogaaminayana qaybta Gorgor kuna soo tababartay dalka Turkiga wuxuu kamid ah ciidankii dhawaan ama uu hogaaminayay ciidankii dhawaan la wareegay deegaanka Awdigle marka aad baa taliyahan loo amaanay dilkiisana waa arrin maartay Soomaaliyeed ay aad uga naxeen Allah u naxariisto ehladii uu ka baxayna samri iimaan Allah ka siiyo marka dawladda Soomaaliya waxa looga baahan yahay in cadeyn rasmi ah ay la timaado ehladii uu ka geeriyoodana maadaama qofkii hadda uu dhintay laakiin dawladdu ay cadeyso cidiisa iyo sababta loo dilay inkastoo oo taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya Sakiye Xuseen ay hore u sheegtay in la soo xirxiray kuwii ka dambeeyay baaritaanada ay socdaan markii baaritaanadaas ay soo dhameystirmaan shacabka la wadaagi doono cid rasmiga ka dambeysay dilka taliyaha iyo waliba sababta loo dilay aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Barra Ilka Case waxaana inta kusoo gabagabeynayna gabi ahaanba barnaamijkii kormeerka wararka iyo kaftanka ee maalinnimadan maanta oo aad ka daawanaysaa channelada kale ah Kismaayo Cable iyo Qarijiqood waxaad la socodsiinay anigoo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed tan intaanu xilli wareedkeena dambe isku soo noqon doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.